kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin iyo saacad kasta idin tahay soo dhawaada halkani waa channelka Sakhaawdiin oo aad naga daawanaysaan waa barnaamijkii su'aalaha aan dadweynaha ku weydiinay alaabo aad naga barateen su'aala noocay rabtaan ha noqday bulshada aynu weydiino sidaa daraadeed fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad iminka nagu soo biirtay casaanka cadaan u bedel gambalaalka fursi aad nagula socoto barnaamijkeena maalin kasta aan soo deyno la garantaada iyo share garantaada ayaan wax ku nahay aad u maasantahay walaalkay adigana daawanaya aad u maasantahay barnaamijka su'aalaha qofka ugu horeeyo nasiibku u yeeshaan ku bilaabeena waayahay walaal ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan walaal aad baad mahadsantahay waana ku dhawahay walaal ay magacaaga adoo ku bilaabay walaal magacaygu waa Asi Maxamed Cabdilaahi Asi qosol wanaag Asi qosol wanaag ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin waa su'aalaha aan dadweynaha rabnaa inaan weydiino maanta su'aalo caadi ah su'aashaasna waxay ku oranaysaa sida tan wiili abis baa laga doonayaa saddex beed u qaybiso waa saddex beed inaad mid jibisana looma baahno marka sideed ugu qaybin lahayd hadda waa wiili abis iyo wiili abis wallahi hadan de maskaxdeeda ka wiili abiyo jabasiin lahayd looma baahna in jab la isticmaalo saddexda la qaybinaya saddexda ayaa la qaybinaya marka waa wiili abiyo ina saddex beed loo qaybiyo la doonayaa wallahi saad aad baan mahadsan tahay YouTube kaagna waan soo dhaweynayay laakiin insha Allah su'aalaha ma isku dayi doonaa YouTube kana la sii share gareeyo commentiga Sakhaawdiin waa YouTube aadan u jecelahay aniguna waan ku xidhanahay aad u maasantahay walaal aad u maasantahay qosol wanaag way walaal ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan walaal magacaygu Musa Daahir su'aala ayaan dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa weydiinay su'aashan waxay ku oranaysaa sida tan saddex beed koow labo saddex beed ayaa loo qaybinayaa wiil iyo aabihiis iyo wiil iyo aabihiis saddex beed in la kala jabiyana looma baahno wiil saddex inan iyo saddex aaboodna loo qaybinayaa saddex xabo beed ayaa loo qaybinayaa wiil iyo aabihiis wiil iyo aabihiis inaad mid jabisana looma baahno ka waxayno adoo isku dayaya waxaan oran lahaa anigu saddex oday ayaa la kala siinaya saddex midho beedka waa gartay inamadan iyaga waxay siinayaan ka garanay ayo garanay aad u maasantahay walaal soo dhaw thank you very much qofka walaal ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan magacaygu Maxamed Xaaji ku dhawahay walaal su'aasha dadweynaha ugu talagalnay aan galabta weydiinayna dadweynaha Hargeysa ku nool su'aasha waxay oranaysaa sida tan su'aashani waxa weeyaan saddex xabo miro beera ayaa la rabaa in loo qaybiyo wiil iyo aabihiis ayadoo aan midna la kala jabin midna la kala qaybin hadii oo kaamirada wiil iyo aabihi tii aabaha wax barsiinay wiilka raxbad marka hadda meesha waxaan ku yiri waxa maraya saddex miro beedna way taalaa wiil iyo aabihiis ad maraya isku day taray marka waxa la siinayaa hadda mid baa iska tanaasulaya hada ma santahay thank you very much qofka xiga oo dadweynaha aan weydiinayna su'aalaha magaalada Hargeysa walaal su'aalaha aan la weydiinayna dadweynaha Hargeysa ku nool su'aashu waxay ku oranaysaa intaan ku su'aashu weydiin sorry horta ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan waa dhawahay walaal magacaygu waxa weeye Axmed Iimaan Ibrahim su'aashu waxay ku oranaysaa saddex midoo beed ayaa yaala waxa loo qaybinayaa wiil iyo aabihiis waxbad in la kala jabina looma baahno marka sideed yeelayd saddex midoo beed ayaa waxa loo qaybinayaa wiil iyo aabihi marka de wiil iyo aabihi kaliya aba jooga meesha marka saddexda beed iyagu baa la wada siinayaa sidee u siinaysaa in qof laba la siina looma baahno qofna laba la siina looma baahna in la kala qaybiyana looma baahna marka waxa noqonaysaa de markaas wiil iyo aabihi kaliya ama aabihiis in la siiyo bis looga tanaasulo mid tanaasulaan aad u maasantahay wili maadka thank you isku daygaaga walaal ku soo dhawow channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan magacaygu waxa la yiraahdaa Daawud Maxamed Cawaale Daawud su'aal maskixiyan u baahan oo aan dadweynaha Hargeysa ku nool weydiinayni waxay ku oranaysaa saddex midoo beeda ayaa yaala meesha waxaana jooga wiil iyo aabihi inaan u kala qaybinaan in la kala jabin looma baahno in qof laba la siin looma cadaalad baa loo baahan yahay cadaaladdu waxay noqonaysaa waa laba wiil oo walaalo iyo aabahooda waa la kala siinayaa wiil iyo aabihi labadayna waa walaalo iyo odaygii dhalay waa gartay waaba saddex qof saddexda waa loo kala dhiibayaa aragtidaada saawi aragtidaada aad ma santahay thank you very much thank you soo dhaw walaal ku soo dhaw channelka Sakhaawdiin adoo ku bilaabaya magacaaga saddexan magacaygu Nagiib Cabdalle Maxamed magacaaga Nagiib Cabdalle su'aalan dadweynaha Hargeysa ku nool weydiinayni waxay ku oranaysaa saddex midoo beera ayaa yaala meesha
waxaana la rabaa in loo qaybiyo wiil iyo aabbihii marka sidee u aragtaa dareenkaaga cadaalada in la kala jibin looma baahno in qof laba la siin looma baahno waa saddex beed asuma ha wiil iyo aabbihii ha wallahi lisleere isku day xabba haddii loo siin lahaana mid baa dekhad ka baxaya tanaasulaya aad iyo aad in la kala jibiyana looma baahno in la kala jibin looma baahno kolley midhaasunbaa dee tanaasulaya mid baa tanaasulaya adaa u mahadsan tahay daawadayaal halka aad nagala socotaan waa janalka Sakhaawudiin haddii aad iminka nagu soo biirtay fadlan casaanka cadaan u bedel gambaleelkana furo si naxariis leh ayaan kaaga codsanaynaa weli su'aalihii baan bartamay kaga jirnaaye walaal ku soo dhow janalka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan wandhowe walaal magacaygu aadanow sidee u aragtaa su'aasha dadweynaha Hargeysa weydiinayna waxay ku oranaysaa saddex miro beeda ayaa yaala waxaan rabnaa inaan u qaybino wiil iyo aabbihii waa u qaybsamaysaa see u qaybin lahayd adugu in la kala jibin looma baahno waxaan ugu qaybinayaa meeshu saddex midho beedaa yaala dadkuna waa saddex dadkuna waa saasaad u aragtaa hadda wiil iyo aabbihii baa jooga waan kuu sheegaya wiil iyo aabbihii waa inan iyo awowgii iyo aabbihii weeyaan inan aabbihii iyo awowgii saasay kula taado aadaa u maasantay marka maxaa u qaybin lahayd marka calaamir bay u qaadanaya xisaabta markaa way isleegtaa leed adugu aadaa u mahadsantahay magacaaga igu celi aadaa u mahadsantahay dadweynaha ayaan weli ka codsanaynaa barnaamijkeena bartamaha kaga jirnaaye soo dhow walal ku soo dhow janalka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan magacayga Mawlid Xirsi Ismaan Mawlid su'aasha aan dadweynaha weydiinayna Hargeysa ku nool waxay ku oranaysaa saddex miro beeda ayaa meesha yaala waxaan rabnaa inaan u qaybino wiil iyo aabbihii marka in la kala jibin looma baahno in qof laba la siino looma baahno cadaalad baan rabnaa inaan u qaybino meesha waxa yaala waa saddex miro beeda wiil iyo aabbihii in la siiyo la rabaa horta dee walaalo marka waxa laga yaabaa in haddii ay waxa laga yaabaa in aabbuhu mid yahay laba wiilna uu dhalay marka dee xafladii inay saasoo noqonayso marka aabbihii inuu sidiisaba mid yahay laakiin laba carruur uu dhalay ay taagan yihiin meesha marka xisaabtu ay saddex qof noqonayso anigana afkayga maxaan kaaga sheegay wiil iyo aabbihii afar qof okay aad ma santahay tankii isku daygaaga walaal ku soo dhawow channelka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga saddex axmed nuur cumar baa la yiraahdaa axmed su'aal aan weydiinayay dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan Khayriyeedda ayaa waxay ku oranaysaa sidatan saddex miro beeda ayaa yaala meesha waxaan rabnaa inaan u qaybino wiil iyo aabbihii inaan jijibinana ma doonayno inaan mid laba siinana dooni mayno waa inaan si cadaalad u qaybino min xabada sidee aqliyan adigu keeni kartaa waxaan ku keeni karaa waxa weeyaan odaygii iyo inankiisii iyo inaanu sii dhalay wey saddexdaas way noqonaysaa waa saddex shabaad leed adigu oo afar qof ma jirto sidaa darteedna haddii Soomaaliga la eegana oo waa saxad leed wiil iyo aabbihii way noqonayaan badan aad u maasanta magacaaga sheeg isku axmed aad u maasantahay qof kale wasagana su'aasha weydiinayna wali daawadayaal barnaamijkii aan bartamay kaga jirnaan su'aalaha dadweynaha ku weydiinaynay magaalada Hargeysa iminkana mid kamid ah daawadayaasha barnaamijkan ama ka qaybgalayaashan weydiinayna ku soo dhaw channelka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga السلام عليكم ورحمة الله كله هجنك سخانتين ومعي فيصل علم فيصلو إن سؤاشة ودقيسني سيسيلة هاي سؤاشة وحكورنا ساعة سدح مرو بيضة أيام ماشي يلا وحرنا أنا أقرب ناس ويلي أبيه يويلي أبيه إن تجيبنا المدينة لا بقوا فوقسيننا لا مسوين دون مينو حتى نسكت ده وحوي ويلي أبيه وحوي صدح الناس لا يوم مد أبويا قرتي ما إنا كي أوجي يا أبيه وإن أبيه يأوجي ولا مركز سيدا درتد بس سيدا حب الله قريبنا سيدا درتد بس حب الله هذا هو ما استمع عقيش شغله فيصل هذا هو ما سنتي تانكو فرماج أركز هذا هي داود ديال برنامج كيف أقول لكم كنت جرنا سؤالها تجاوب مسكح هذا أود أي لا ذاي هذا كش قيسين هي مسكح هذا ضد بدنهم السؤال شجرتين ويشرا ولا كل شيء دو channel Sakhaawudiin هذا كوب بلاوي مقعد عبد العزيز محمد حبيب الله يلا عبد العزيز سؤال عند دوينها هرجيسي ويديننا وحكوا لا هاي سدح مرو بيرا يا الله قيبنا يا هذا وويل أبيه يويل أبيه saddexna way taallaa meeshana waxa waa wiil iyo aabbihii waxa laga rabaa inaad u qaybido midna aadan jibin si cadaalada waxay ila tahay aniga ra'yigayga iyo maskaxdayda markaan fiiriyo labadayna inay walaal yihiin odayguna meesha uu joogo
saddex markaa yihiin saddex ay yihiin markaa saddexda midho beedkiina saasay u kala qaadanaya saasay u kala qaadanaya magacaaga ii sheeg walaal cabdicasiis aad ma santa isku daygaaga su'aasha weli su'aalihii dadweynaha weydiinayna ku jirnaa daawadayaal barnaamijkan waa barnaamijkii su'aalaha dadweynaha haddii aad iminka nagu soo biirtay casaanka cadaan u bedel barnaamijka shargare oo la wadaag asxaabtaada walaal ku soo dhawow channelka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan magacayga waxa la Yaasiin Maxamed Xasan Yaasiin su'aasha hargeysa dadweynaha weydiinayna waxay ku oranaysaa sida tan saddex midho beer yaala saddex midho beed ah waxa loo qaybinayaa wiil iyo aabihi iyo wiil iyo aabihi dabeetana mid in la kala jibiyo ama mid laba qof qaatana lama doonayo haye isku day wacan waxaan u arkaa anigu laba inaan oo walaala iyo aabahoodu inay meesha joogaan marka waa wiil iyo aabihi laba nin oo walaala ah oo hal aabba iyo aabahoodu la jooga salahan wiilka adiga kula dhashay iyo aabaha saddexdaas marka waa wiil iyo aabihi hada ma santa magacaaga sheeg walaal Yaasiin hada ma santa wali barnaamijkeeni baan bartamaha kaga jirnaa su'aalaha dadweynaha weydiinayna haddii aad barnaamijkani aad hadda ku soo biirtay casaanka cadaan u bedel la wadaag barnaamijka asxaabtaada walaal ku soo dhawow channelka Sakhaawudiin adoo ku bilaabay magacaaga saddexan ku dhawow walaal magacayga Xasan Mawlid Maxamed Mawlid su'aal aan dadweynaha hargeysa weydiinayna waxay ku oranaysaa saddex midho beeda ayaa meesha yaala waxaana meesha jooga wiil iyo aabihi iyo wiil iyo aabihi imisa qof baan ku tiri wiil iyo aabihi meesha ku tiri very good waxa saddex midho beera inaan min saddex u siinaan dooni min xabad in loo siiyo la rabaa xisaabta keento bal hadda xisaabta taqaanid maskaxda ka shaqeysay waxay noqon kartaa wasa laba waxa weeye inay aabihi waxa laga yaabaa odaygu inuu labada inaan dhalay waa garto loo walaalay waxa saddex beel ka noqonaya waa gartay marka mid xabad baa loo siinaya qodobka labaadna waxa weeye beedku waxa weeye uu dilaaca waxa weeye haddii afar qof yihiin waxa weeye beedka ma la dilaacinaya بعدنا والله كلا قايمين كراه هذه كراسة أو هلو دقاق دور دلائنا وبضنيا كم وحوي حساب اسكو قاب سيسترلي هنا هذا ما سنتهي هذا مقعد يشك حسن هذا ما سنتهي ثانك يو اسكو دوعان داود يا لوحنا سو غارني غنتي غبابتكي غنانودكي غبغبدي برنامجكيني xiisaha laha aan dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa aan su'aalaha ku weydiinaynay hadii adiga aad hayso qudhaad adigana daawanay su'aalaha aad la socotay jawaabta commentiga hoos inoogu reeb oo barnaamijka la wadaag asxaabtaada cidii saxdayna annagana waanu sheegi doonaa adiguna fikirkaaga inala wadaag halkaad naga daawanaysaan waa channelka Sakhaawudiin aadaan ugu mahad celinaya kaamiramanada faraha fudud waa tahay barnaamijkan waa barnaamijkeennii waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu